السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka duhur ee TV-ga iyo raadiyaha dawladda Puntland oo ka imaanaya xarunta dhaxan ku leenahay magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland. Qodobada ku daawo doontaan waxaa ka mid ah dawladda Puntland oo sharci darro ku tilmaamtay xilka qaadistii wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dawladda Puntland magaalada Garowe ay ku qabatay shir ku saabsan mashruuca sugnaanta cuntada iyo joogteynta xilliyada adag. magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyo qaybo ka mid ah Soomaaliya maalintii labaad ay internet yihiin waxyaabaha sababay ay ku daawo doontaan. Jubbaland waxay faahfaahin ka bixisay hawlgal laga fuliyay gobolka Jubbada Hoose. qodobadaas oo faahfaahsan ayaa halkan idinka soo jeedinaya waxaan rasaas oo ku daawo doontaan warka duhurnimo ee u diyaar garoobay isagoo faahfaahsan. markale kulanti wanaagsan dawladda Puntland ayaa sharci darro ku tilmaantay xilka qaadistii mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku sameeyeen wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni oo shir tiraahid ku qabtay magaalada Gaalkacyo ayaa sharci darro ku tilmaamay xilka qaadistii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo golihiisa wasiirada. waxaan aad uga xumahay wixii shalay ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya. waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed u cadeeyo aniga oo dawladda federaalka ah muddadii aan hadda wada shaqeynayno ay aad u fiicnayn kalena saaraynin madaxweynaha iyo prime ministerka, laakiin muddadii hadda aan galmudug joogno waxa ay muuqanaysay prime ministerku inuu diyaar u ahaa wixii lagu heshiiyay inuu fuliyo, uu nagala hadlayay weliba waxyaabaha ay sida u fuli doonto, uuna u hayay in dalku doorasho uu gaarsiiyo waqtigeeda ku dhacda oo suuragal ah oo u muuqata mid qof walba uu filayo oo ah doorasho dadban inuu qanaacadaas qabay. xilka sida sharci darrada looga qaaday oo la yiri waa laga qaaday waxay uu sababsaday in uu wixii madaxda dawladda federaalka iyo dawladda Soomaaliya ay dawladaha xubnaha ka ay ku heshiiyeen inuu daacad ka ahaa inuu fuliyo. cidda ka qaaday oo arrinta ka dambeysana waxay u muuqanaysaa wixii meesha laga heshiiyay inaysan daacad ka ahayn oo ay ajanda kala wadatay. waxaan rabaa inaan dhowr arrimood halka aan ka cadeeyo. baarlamaanka wixii shalay uu sameeyay waxa muuqanaysa inuusan marin habraacyadii ra'iisul wasaaruhu xilku waa meerto shalay waa la magacaabay baarlamaanka ayaa ogolaaday baarlamaankuna awood uu leeyahay inuu ka qaado, laakiin wixii shalay meesha ka dhacay waxay ka hor imaanaysay dhammaan shuruucdii dalka u deganayd iyo habraacyadii lagu yaqaanay marka la rabo in la adeeyo ra'iisul wasaare in xukunka looga qaado. waxaa iyadoo oonan eedayn loo soo jeedin, iyadoo ajandaha aan lagu darin, iyadoo oo aanan loo codaynin ayuu gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku dhawaaqay in uu xilkii uu ka qaaday. waxaase cajiib ah oo ka sii daran in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku celcelin jiray waxaan ilaalinayaa dastuurka uu si degdeg ku aqbalay arrintaas sharci darrada ah oo ay muuqato in uu buriyay qodobo dastuuriya oo runtii dalka u deganaa oo la oran karo dastuurkii uu ku xadgudbay. waxaa intaa ka daran isla waqti yaroo kooban madaxweyne ra'iisul wasaarihi oo dhuuso mareeb ka tegin inuu wareegto ku soo saaray in uu xilka sii hayn doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka. wuxuu madaxweynuhu si cad ugu tuntay qodobka 103 ee dastuurka oo cadeynaya marka uu ra'iisul wasaaruhu xilka laga qaado ama uu iska casilo in uu xilka sii wadayo ilaa uu la wareegayo qofka kale ee la soo magacaabay. inuu wareegto uu xilkii uu ku wareejiyo ra'iisul wasaare ku-xigeenku iyadana waa qodob dastuuri ah oo la dumiyay oo runtii halis keenaysa. marka arrimahaas la isku daro haddana wuxuu ku cadeeyay in uu ra'iisul wasaare ku-xigeenka hadda uu magacaabay oo xukuumadda dhacday ka mid ahaa uu sii wadi doono shirkii dhuuso mareeb isagoo ilaalinaya xeerka doorashada iyo dastuurka. waxa ugu weyn oo xubnaha dawladaha federaalka ka mid ah ay dooda ka qabeen waxa ka mid ah sharciga doorashada ee hadda baarlamaanka oo ansixiyay oo runtii mugdi badan ku jiro una haboonayn in doorasho qof iyo cod lagu galo oo marar badanna Puntland mawaqifteeda ay hore u cadeysay. marka inta la isku soo horiyo waxa aad u muuqanaysa madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka doorasho geliyo, madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka si dimuqraadi u maamulo,
wuxuu caddeeyey in uu wareegto uu rabo inuu ku maamulo wuxuu caddeeyey inuu sharciga dastuurka uusan ixtiraamayn oo uu ku tumanayo mawaaqiftaas marka aan darisnay dowladda Puntland waxay shaki gelinaysaa ku dhaqanka xeerarka iyo dastuurka dalka u degan dowladda Puntland waxay si adag u diidaysaa wixii halka ka dhacay oo runtii ay u aragto in lagu majaxaayinayo shirkii quruxda badnaa oo runtii walaalaha dowladda Galmudug ay guud ahaan shacab iyo dowladba ay waqtiga badan ku bixiyeen oo culays badan uu ku fuulay oo runtii iyaga oo curdin ah oo dowlad cusub ah oo aanan caga dhiganin iyo magaalada oo muddo runtii ay dowladdu ku shaqeynayeen ay dhabarka u riteen oo aan uga mahadcelinayna soo dhaweyntii quruxda badnayd iyo sida isu xilqaameen ka dhacday in uu xagal daaciyay dadaalkii dadka reer Galmudug ay ku bixiyeen inuu shirka qabsoomo una muuqanayo hadda waxaan u dhaceen oo dhan ay tahay in lagu diidanaa shirkii loo ballansanaa 15 Agost in lagu qabto Dhuusamareeb mar labaad iyo in guddigii farsamada uu keeno wax dadka Soomaaliyeed ku heshiin karaan kaas waxa uu madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni oo ka hadlay mowqifka Puntland ee ku aadan xilka qaadista ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre haatan wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland ayaa magaalada Garowe waxay ku qabatay shir ku saabsan mashruuca sugnaanta cuntada iyo joogteynteeda ee xilliyada adag shirkan oo ka dhacay xarunta dhexe ee wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland ee magaalada Garowe waxaa ka qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo 100 qof oo laga kala keenay magaalooyin ay wasaaraddu ka sameysay xog ururin ku aadan mashruucan iyo qaabka loo hirgelin karo wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland Cabdirashiid Cali Geelle ayaa si rasmi ah u furay shirkaasi waxa uuna ka warbixiyay mashruucan iyo faa'iidooyinkiisa aad iyo aad baan idinku macdalinayaa dadkeena gobolada fogfog ka yimi isku taxalujiyay inay yimaadaan halkan runtii waxaan isleeyahay waxaad la noqon doontaan oo aad maanta halka u timaadeen fikradii iyo shirarkii badnaa iyo assessmentkii badnaa oo leedin ka soo qaaday inaad maanta bal waxa aad sheegaysay inay halkan ay run yihiin iyo in kale inaad la wadaagtaa wasaaraddii iyo hay-addii jeefa marka maalinba maal bay taagan tahay mashruuca timirtu waa mashruuc fiican waan isleeyahay wuxuu u baahan yahay process badan wuxuu u baahan yahay in la iska rab taago iskaashatooyinka dhammaan waliba khaasatan beeraha oo kale beeruhu waa ognahay timirtu processkay marto meelaha ay soo marto waxay la tahay taas hay-adda iyo baadhooda hoos gudigi doonta laakiin hadda waxa suuqyada buuxiyey wax soo saarkii beeraha oo timirta waa aad iyo aad baan loogu farxaa waxaa la arkaa in gobollo kalena ay aadaan inay haddana ay waddanku ka dhofo haddii loo qaado la geeyo dibadaha marka halkaa waxaa soo gaarsiiyey iskaashatadan iyo dadkan beeraleyda isku tashaday insha allahu tacaala waxaa is leeyahay wax ka sii fiican iyo aqoon ka sii fiican baad sii heli doontaan haddii la haydmo seminaarku waa inoo furan yahay insha allahu tacaala shirkan wuu inoo furan yahay waxaan is leeyahay maalin maalinta ka dambaysa waa ku siilbaxaynaa xaggii tacabka beeraha timir keliya maaha waddanka wax badan baa ka baxa laakiin waxaa la rabaa inteennan oo isu tagtay oo maskax iyo maalba isu geysay wuxuu noqon doonaa waddanka inuu wax badan ka soo saari karo kaas waxa uu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland Cabdirashiid Cali Geelle haatan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah gobolada koonfureed ee dalka ayaa maalinkii labaad waxa la sheegayaa inay internet la'aan yihiin qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa internet la'aan maalintii labaad inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya dadka ku sugan ayaa uu ka maqan yahay adeega asaasiga oo ah dhalinyarada tiro badan shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo ka mid ah kuwa ka howlgala gudaha Soomaaliya ayaa sheegtay in baaritaan hordhaca ay ku hayso cilada ku timid kadib markii dabeelo xoogan ay ka dhaceen badweynta India waxay saameyn ku yeesheen xargii internetka taasoo oo sababtay inay cilad ku timaado ayaa lagu sheegay war qoraal ah oo lagu daabacay bogga shirkadda Hormuud sidoo kale adeegyada kale ee internetka ee aan ahayn midka Hormuud oo dad badan isticmaalayaan ayaa ka maqan magaalooyinka ay Muqdisho ka mid tahay dowladda Jubaland ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay howlgal ay ciidamada militariga ee dowladdaasi ay ka fuliyeen deegaano hoos yimaada gobolka Jubbada Hoose ciidamada daraawista dowlad goboleedka Jubaland ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen deegaanada miyiga ee ku dhow
cabdalla biroole ee gobolka jubbada hoose. saraakiisha howlgallada hogaaminaysay ayaa sheegay in howlgalkaasi uu ahaa mid qorshaysan kadib markii ay cabasho usoo gudbiyeen dadka shacabka ee ku nool deegaanada ku dhow cabdalla biroole. saraakiisha ma aysan faahfaahin waxyaabaha ay ku soo qabteen howlgalkaas, waxaana wararka la helaya sheegayaan in ciidamada daraawiishta Jubbaland ay dib ugu soo laabteen deegaanadii ay howlgalka ka fuliyeen oo al-shabaab markii hore gacanta ku hayay, ayna dib ugu soo laabteen gacanta dowladda Jubbaland deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Jubbooyinka. warka duurnimaad kala socoteen Puntland TV idinkan imaanaya xarunta dhexe aan ku leenahay magaalada Garowe caasimada dowladda Puntland oo halkan aan idinka soo jeedinayay anoo Maxamed Rasaas. daawadayaal wanaga intaasi wararkaas oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan qeybaha dambe ee tabinta wararka iyaga intaanu ka mid labada ku kulmi doono sidaas nabadgelyo.